kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo Arbaco ah kowda bisha afraad ee sanadka 2020 idaacadda subaxnimo waxay idinla socodsiinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada aad idaacadayada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay inay ku raad joogto dadka la kulmay 2 qof oo laga helay cudurka COVID-19 hay-adda Amnesty International oo ciidamada Mareykanka ku eedeysay inay dad rayd ah ku dileen Soomaaliya saameyn intee la eg ay shirkadaha dulimaadyada ka shaqeeya Soomaaliya ku yeelatay xayiraadda diyaaradaha maalinkii waxaan qaban jirnay tigidho aad u fara badan customer badan ayaa meesha imaan jiray meesha waxay aan jirtay meel buuqa oo saxmad badan shaqadeedana si habsami leh oo maaragtay aad u xoogan ay u socoto laakiin waa dareemi kartaa maanta sida u haawanayso qof soo galayana oonan jirin meesha dad Yuruubiyaan ah oo dalal ka mid ah Afrika loogu cunsuriyay cudurka COVID-19 Jubbaland waxa ay mamnuucday ka ganacsiga dharka hudheeda ah iyo generaalada dibadda looga keeno qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihiin ay ka mid yihiin ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo Axmed Badar maasanid Kawthar madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay muwaadiniinta Mareykanka in uu horyaalo amaba ay ka horeeyaan 2 toddobaad oo adag madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dalka Mareykanka uu wajahayo xaalad adag oo ay horey u soo marin Trump ayaa khudbadan jeediyay kadib markii la soo saaray tiro muujinaysa in Mareykanka uu ka saaray dhanka dhimashada corona dalkii cudurkaasi ka soo bilaabmay ee Shiinaha saraakiisha dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen in tilaabooyin lagu xakameynayo cudurka la qaaday taasi oo ay ka mid tahay in bulshada markaasi lagu baaqo kala fogaanshiyo iyo in meelaha markaasi aysan sugu iman ay bulshada ku kulmi jireen baandulaha mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee xambaara diyaaradaha ayaa waxa ugu baaqay hoggaanka ciidamada badda ee Mareykanka in ay badbaadiyaan nolosha in ka badan 4,000 oo saaran markabkiisa kuwaasi oo badankood la rumaysan yahay inuu haleelay caabuqa corona warqad ka kooban 4 bog ayuu Captain Brett Cruiser waxa uu ku baaqay in la qaado tilaabo adag si meesha looga soo saaro isla markaana loo karantiilo ciidamada saaran markabka oo imika ku sugan Guam oo ka tirsan galbeedka badda Pacifica Captain Cruiser ayaa waxa uu ka digay in markabkani ah kuba xambaara nuclear-ka uusan lahayn goob dadka lagu karantiiro si loo joojiyo faafidda caabuqa wasiirada maaliyadda iyo bangiyada dhexe ee wadamada dhanka warshadaha ku hormaray ee G20 ayaa waxay sheegeen in kaalmo dhaqaale ay siin doonaan dalalka saboolka ah si ay ula dagaalamaan saameynta cudurka safmarka ee corona kadib kulan loo adeegsaday aaladda casriga ee la iska arko ayaa waxa ay saraakiisha wadamada G20 ay sheegeen inay raadin doonaan qaab wadamada saboolka looga cafiyo deymaha lagu leeyahay toddobaadkan soo dhaafna ay ahayd markii wadamada G20 ay ballan qaadeen inay bixin doonaan $3 trilyan oo lagu kabayo dhaqaalaha caalamka ee u galaaftay caabuqa corona dowladda Netherland ayaa waxay kordhisay ilaa iyo 28 bisha Abriil xanibaadaha lagu leeyahay in lagu xakameeyo caabuqa corona ra'iisul wasaare Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in iskuulada goobaha lagu caawiyo iyo waliba goobaha jimicsiga la xiri doono ayna sii xirnaan doonaan ilaa waqtigaasi waxa ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay sii wadaan hoggaansamida tilaabooyinka ay ka mid ka tahay in bulshadu ay kala fogaato isla markaana ay guryaha ka shaqeeyaan inta suuragalka dalka Netherland waxa cudurka corona ugu dhintay 139 qof ugu dambeyntiina wadamada deymaha bixiya ee ku midaysan Paris Club ayaa waxay isku raaceen in Soomaaliya ay ka cafiyaan deen dhan $1.4 bilyan oo dollar go'aanka ayaa Soomaaliya u suuragelinaya inay raasato ilo dhaqaale oo cusub taasi oo gacan ka geysan karta dib soo kabashada Soomaaliya 30 sano oo dagaal sokeeye kadib wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle ayaa soo dhaweeyay go'aanka Soomaaliya looga cafinayo deymahaasi waxa uuna sheegay in arrintani ay gacan ka siinayso dalka inuu soo kabto wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay sii wadi doonto isbeddelka dhaqaalaha horseeday in deenta laga cafiyo warkii dunidana waa naga inta Kawthar aad buu u mahadsan yahay Axmed Badar ayuu ahaa oo inala socodsiinayay warkii dunida halkaad ka dhageysanaysaan waa BBC waa hagaagsan wax wanaagsan marka la dhageystayaal aynu ku bilaabnay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa sheegtay inay raadinayso dhammaan dadkii la kulmay 2 qof ee shalay laga helay cudurka COVID-19 wasiirka warfaafinta ee Somaliland Suleymaan Yuusuf Cali Koore ayaa BBC-da u sheegay
in la xiray goobta macdanta laga qodo ee uu ka shaqaynayay ninka shiineyska ah ee laga helay cudurka, halka ay karantiileen qofka Soomaaliga ah ee uu isna cudurka u haleelay. wasiirka ayaan ka wareystay arrimahaasi iyo tallaabooyinka ay uga hortegayaan faafidda cudurka. labada qof waxa weeye midna waa qof Somalilandera, qofna waa qof Chinese oo ka shaqaynayay shirkad qodaalka sameysay oo macdan ka shaqaynaysay. labaduba keiskoodu positive buu noqday sida ay caddeeyeen dhakhaatiirta iyo laababkii kala dambeeyey referenskooda ee wasaaradda caafimaadku, sida ay wasiirka iyo gruubkii dhakhaatiirta ahaa ee wasaaradda caafimaadku u caddeeyeen. waa labadaa qof. dabcan inta aysan calaamadaha cudurku ku soo bixin waxay labadaasi qof ay la kulmeen dad kale, marka ma ka daba tagteen dadkii ay la kulmeen inta ay Somaliland joogeen? aad iyo aad baa arrintaa laysaga saaray xil weyn. dhammaan horta kaamkii laga qodayay macdanta gebigiisii waxaa lagu sameeyey godoomin. ninkii kale ee Somalilanderiska ahaa ee Burco joogayna isaga iyo faamiligiisii iyo dadkii ay xiriirka wada yeesheen intay yeesheenna waa la raadinayaa, waa la qorshihii dhakhaatiirtaa socotay. marka tallaabooyin fara badan oo ay wasaaradda caafimaadku qaatay iyadoo la kaashanaysa wasaaradaha Somaliland meel fiican baa wax marayaan. wasiir, ma jiraan dad kale oo aad baaritaan ku samayseen oo natiijada baaritaankooda la sugayo? ilaa iyo hadda qolada wasaaradda caafimaadku iyo dhakhaatiirtu cid kale oo baaritaan ku jirta nooma sheegin. waxay noo sheegeen inay dib u baadhayaan dadkii ay dadkaasi la wada kulmeen oo dhan, laakiin wax baaritaan ku jiraa ma jiro. laakiin waxaa run ah in uu keiskii maanta Somaliland qayb ka midii ama dad ka mid ee labadaa qof ugu horreeyaan inuu cad yahay inuu positive yahay. qof kasta oo reer Somalilandna oo awal istiidsiinayana waxaanu leenahay keisku wuu jiraa, xanuunku waa ina soo gaadhay. qof kasta meel kasta iyo goob kastuu ku sugan yahay waxaa laga rabaa mas-uuliyad inuu ogaado inuu dul saaran yahay isagiiyo faamiligiisa. waxa keliya ee lagaga hortegi karaana waa in ummaddu joojiso isotiga bilaa macnaha ah, ama qof kasta uu sayfgaraya naftiisa, nafta walaalkii, nafta carruurtiisa iyo nafta reerkiisa. hadduu qof kastaa intaa garto mas-uuliyad aynu wada fulinay bay noqonaysaa. adduunkii waxa uu ku dadaalayaa sidii loo xakameyn lahaa faafidda cudurka. Somalilandna weli waxaa ka dega diyaaradda Ethiopia Airlines oo dad ka keenta dalkaasi uu cudurka saameeyey. marka maxaa arrintaasi go'aan uga gaari laadihiin? runtii dadka imaanaya dad Somalilanders bay markii hore ahaayeen. qofkii oo ku dhex jira taraagii 3 casho ama 4 casho ee ugu dambeeyey taraagii ku dhex jira ama lacagtii koostay ama airportka ku jira waynala noqon weyday inaan celinno. laakiin policy aanu soo saaray oo 2-3 maalmood kahor soo saaray baa jirta oo aanu leenahay wixii hadda ka dambeeya lama soo qaadi karo dad ka yimid Yurub iyo North America. qaabka aanu ugu talagalay waxa weeye inaanu bal dadka qudhoodana eegno duruufaha ay ku jiraan. laakiin hadda waanu u gudbinay, waanu u sheegnay diyaaradduna Ethiopian Airlinesna way nala qaadato. hadda marxaladdu meel fiican bay maraysaa. diyaaradda Ethiopia Airlines markaynu ka soo tagno waxyaabaha kale ee laga cabsida qabo inuu ku faafo fayraskan waxaa ka mid ah qaadka oo weli soo gala Somaliland. marka arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan? dadka maanta joogay aan anigu ka mid ahayna waayo aragnimo weyn ayay ka hayaan inaanu dhib yarayn in jaadka si tartiiba loo yidhaahdaa waa la joojiyey. laakiin waxaanu wadnaa dadaal aanu dadka ku haranayno, hadday tahay ummadda aqoonta leh, dhakhaatiirta, culimaa udiinka, dhammaan dadka waxa yaqaana inaanu marka hore horta front uga soo wada jeensan. marka waxaan rabaa inaanu ummadda tala buuxda ula tagno qaabkii loo xakamayn lahaa iyo sidii loo joojin lahaa. wasiirka warfaafinta ee Somaliland Suleymaan Yuusuf Cali Koore ayuu ahaa oo iga waramayay tallaabooyinka ay ugu hortegayaan faafidda cudurka kadib markii shalay 2 qof laga helay COVID-19. markana hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in duqeymaha uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya ay ku dhintaan dad rayid ah, isla markaana aanay jirin cadaalad ama magdhow ay helaan ehelada dadkaasi la laayay. hay-adda ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku salaysay 2 weerar oo ay sheegtay in dad rayid ah ay ku dhinteen sanadkan gudihiis. taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa war-saxaafadeed uu shalay gelinkii dambe soo saaray ku sheegay
in 3 biloodba uu mar soo bandhigi doono warbixin ku saabsan khasaaraha weerarahooda ka soo gaara dadka rayidka ah ee laga bilaabo dhammaadka bishan. Cabdulaahi Xasan waa cilmi baaraha Amnesty International u qaabilsan Soomaaliya. waxaan ka wareystay warbixintooda waxay ku saabsan tahay 2 dhacdo oo ka dhacday degmada Jilib oo ciidamada militariga Mareykanka duqeyn ay ku sameeyeen deegaankaas 2 bishii February iyo 24 bishii February. waxaan ogaanay in dhacdada koowaad 2 bishii February dhacday ay ku dhimatay gabar 18 jir ah, ay sidoo kale ku dhaawacmeen 2 gabdhood iyo hooyo 70 jir ah. waxay ku tusaysaa 4 qof ay wax ku noqday weerarka asaga inay dhammaantood shacab ahaayeen oo ayagoo gurigooda joog ay halkaasi markaas. laakiin Africom labada kiisba waxay sheegtay inay ku beegsatay kuna dishay xubno al-shabaab ah. marka idinku xageed ka hesheen warka ah in dadkaasi ay rayid ahayeen? ma ahan marka koowaad oo Africom inta dad shacab ay disho ama ay dhaawacdo ay tiraahdo dad al-shabaab ayaan dilnay. waxaanu la hadalnay oo wareysanay qaraabadii iyo dadkooda joogyaal ah. sidoo kale waxaanu aragnay video yar laga soo duubay iyo sawirro laga qaaday goobaha ay dhacdada ka dhaceen. waxaanu aragnay oo xaqiijinay madaafiicdii lagu isticmaalay weerarkaasi inay ahaayeen madaafiic ay leeyihiin dalka Mareykanka. sidoo kale way qirteen Mareykanku way qirteen maalinka ay ahayd inay weerar sameeyeen. marka magaalada Jilib ninkii ka ahaa maamulaha Hormuud markii la dilay isagoo beertiisa joogo, markii la dilo gabar 18 jir oo gurigeeda ayadoo ku casheynaysa lagu dilo, sidoo kale hooyo 70 jir ah ama 2 gabdhood oo markaasi yar lagu dhaawaco gurigooda, waxay cadeen u tahay in dadkaasi ay shacab yihiin oo aan ahayn dad al-shabaab ah ama ka qayb galay dagaalo laga horjeedo dawladda ama Mareykanka. ka Amnesty ahaan dhowr jeer oo hore ayaad duqeymaha Mareykanka ka soo saarteen warbixino aad uga hadlaysaan khasaaraha gaaray dadka rayidka ah, mana muuqato inay wax isbedelaan. marka maxay soo kordhinayaan warbixinadiina? warbixinada aan soo saarno aad bay muhiim u yihiin. mar waliba dawladda Mareykanka ama dawladaha kale ee Soomaaliya ka howlgalay ay dad shacab waxyeelayaan ama xuquuqdooda ay ku tacadiyaan, Amnesty International waa hay'ad u dooda xuquuqda aadanaha, marna kama daalayso in dadkaasi xuquuqdooda ay raadiso oo dhammaan dawladaha dagaalka kula jira al-shabaab loo sheegay in haddii al-shabaab la dagaalayaan oo keliya ay tahay sidii shuruucda caalamiga ay sheegaan in al-shabaab dadka hubaysan ee al-shabaab ka tirsan ay la dagaalamaan oo markaasi dadka shacabka ah ee guryahooda jooga ayna burburinin. marka mar waliba waan ku celcelin doonaa. sidoo kale waxaa jirtay in shalayto sida la socoto ay Africom soo saareen warbixin cusub oo ay leeyihiin wixii ka bilowda bishan April waxaanu samayn doonaa tacadiyada iyo dadka shacabka waxyaabaha ku dhacay oo warbixino kasoo saari doonaa oo markaas xaaladaha aan ku indheynayno. waxaan aaminsanahay taas inay qayb ka tahay dadaaladii anaga aan suubinay oo ahaa mar walba inaan xasuusinay in dadka shacabka ayna dilin. 2 qof oo shacab ayaa jiro oo 1 bishii April 2018 Mareykanku ay ku dileen magaalada Ceelbuur. taasi way qirteen Mareykanka oo way sheegeen in dadkaasi ay shacab ahaayeen. marka dadaaladaas oo dhan oo aan sameynay waxay tusaysaa in Africom ay dhageysanayso mararka qaar markii loo sheego dhibaatooyinka ay geystaan. Cabdulaahi, sidaad sheegtay ba Africom war-saxaafadeed ayay soo saartay gelinkii dambe ee shalay. marka tallaabadaasi sidee baad u aragtaan idinka? warbixinta ay shalay soo saartay inta warbixintanada ayna soo bixin Africom waa aad baan usoo dhaweynaynaa. waxay tusaysaa in ay markaasi dhageysteen baaqiyadii farada badnaa aan usoo joodinaynay oo ay shacabka iyo dhimashadiisa iyo maaragta tacdiyada xuquuqul insaanka ay sameynayeen markaasi ay dareemeen. laakiin in warbixin ay soo saaraan keliya waxaa uma tarayso. waxaa oga baahannahay in ay hufnaato oo maaragta warbixinada ay soo saarayaan oo ku aadan dadka shacabka ah oo ay laayeen sida masale Maxamuud oo kale oo maamulaha Hormuud ahaa, gabadha Soomaaliyeed hooyadaas meesha ku dhaawacmatay, in markaasi eheladoodii ay helaan cadaalad oo markaasi magdhow loo sameeyo si dhibaatadii ku dhacday dadkooda shacabka ee looga daaweeyo. kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xasan, cilmi baaraha Amnesty International u qaabilsan Soomaaliya oo iiga waramayay warbixintooda cusub. weli halka aad naga dhageysanaysaanna waa BBC. iyadoo Soomaaliya ay xayirtay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha sabab la xiriira ka hortagga faafidda cudurka COVID-19 ayaa waxaa durba soo baxaya saameynta shaqo iyo midda dhaqaale ee arrintaasi ay ku yeelatay xafiisyada iyo shirkadaha ka shaqeeya jarista tigidhada lagu raaco diyaaradaha. xafiisyada shirkadahaasi ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa istaagay howlihii tigidh jarista ee ay ka shaqaysan jireen iyagoo durba khasaaray $10,000. xaaladdu haddii ay sidan sii ahaato waxa ay ka baqdin qabaan inay kacaan. Maxamed Tahliil Gaadyare waxa uu madax u yahay xafiis lagu jaro tigidhada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan ayuu u waramay. runtii saameyn weyn buu nagu yeeshay wuxuuna hakad geliyey habsami socodkii shaqooyinkii maalmeedka ahaa ee ka socday travel agenciyada waxaana la dhihi karaa haddii uu qaabkan usii socdo wuxuu gebi ahaanba shaki geli karaa habnololeedka caadiga ah ee dadka ka shaqayn jiray travel agenciyada. waan aragnaayo xafiiskiina waa cidlo maalmaha qaarkoodna aad buu mashquul u ahaan jiray markii tikidhada laga goosan jiray markii ay duulimaadyadu shaqaynayeen. marka haddaad noo sharaxdo farqiga markii hore iyo maanta. runtii farqiga aad buu u kala duwan yahay. sida caadiga maalinkii waxaan qaban jirnay tigidho aad u fara badan kastamar badan ayaa meesha imaan jiray. sida aad sheegtaba meesha waxay aan jirtay meel buuqa oo saxmad badan shaqadeedana si habsami leh oo maaragtay aad u xoogan ay u socoto. laakiin waa dareemi kartaa maanta siday u haaweynayso qof soo galayana uunan jirin meesha. taa ay sabab u noqotay xayiraadda magaranaysaa duulimaadyadii localka iyo kuwa internationalka lagu sameeyey bacdama cudurkan covid-19 ku faafay adduunka. marka dabcan waxaa hakad galay gebi ahaanba shaqadii aan qabanaynay. khasaaraha dhaqaale ee idin gaaray muddadii xayiraaddu ay khasaaro xoog laana gaaro runtii shirkadu maynan samaynin wax tigidha maynan jarinin wax kasta marana muuna imaanin. taana waa dareemi kartaa runtii shaqaalaha meesha ka shaqeeya nolol maalmeedkooda caadiga ah wuxuu ku tiirsanaa tigidhada ay sameeyaan iyo duulimaadyada ay kastamarka ugu adeegaan. maxamed waad ogtahay adduunka dhibaato badan baa ka dhacday gaar ahaan shirkadaha ganacsi dhaqaalaha saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay cudurkan covid-19. shirkado waaweyn waxaa jira ay dowladuhu kabayaan adduunka. idinku rajo ma ka qabtaan dowladdiinu inay dhaqaale idinku kabto maadaama aan arkayno in dhibaato xoog leh idin soo gaartay? wallaahi runtii way jiraan dowlado waaweyn oo caalami ah oo runtii dhaqaale ahaan xoogan oo dadkooda kabi kara. sidoo kale dowlada afrikaana waxaa jira iyana awood u leh inay sameeyaan. laakiin markii xaqiiqda aan istusno iyo taagta dowladdeena ay leedahay ma sawiranayno runtii in maaragtay awoodda intaas la-eg ay leedahay dowladda inay kabto shirkada intaas la-eg oo magaalada ku yaalla oo boqolaal ah saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurkan. marka kolley ma niyad jabayno waa dadaalaynaa inta maaragtay aan dadaali karno. laakiin waxaan kolley rajaynaynaa in cudurkanna uu saameyntiisa ay yaraato insha allah. maxamed tahliil gaadyare waxa uu madax u yahay xafiis lagu jaro tigidhada diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wariyahayaga isla muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayuu u waramayey. warar kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay Jubbaland oo markaa mamnuucday dharka hudhayda ah iyo generaalada dibadda looga keeno balse markan xilli uu fayraska corona si xawli ah ugu faafaya caalamka ah ayaa fuquuq ka dhashay cudurkaasi waxaa lagula kacay dadka ajaaniibta ah ee ku nool bariga Afrika. reer galbeed ku nool dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, Kenya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxay la kulmeen aflagaado iyo mararka qaar gacan qaad kuwaas oo inta badan la xiriira cudurka COVID-19. sababta ayaa ah in inta badan kiisaskii ugu horeeyay ee gobolka lagu arkay ay keeneen shakhsiyaad ka soo safray Yurub iyo Mareykanka. wariyaha BBC-da Emmanuel Igunza ayaa warbixintan ku eegaya arrintan soo korortay waxaase soo jeedinaya Xasan Sheekh Cumar. magaalada Iten oo ku taala galbeedka Kenya waxa ay dunida caan kaga noqotay inay ka soo baxaan orodyahanno caan ah oo ka qayb galay tartamada orodka dunida iyo Olombikada. balse toddobaadyadii la soo dhaafay orodyahanada ajnabiga ah ayaa dadka deegaanka oo u saarinaya xanuunka corona waxa ay kala kulmayeen weeraro qarsoon iyo kuwa muuqda intaba. waxayba u sii badnayd dadkii nagu sheegi jiray inaan qabno coronavirus oo marka ayna arkaan carruurta iyo dadka waayeelka waxa ay moodi jireen inaan nahay kuwo iyagu qaba coronavirus. sidaa daraaddeed dhibaatadu waxa ay tahay way naga cararayeen oo waa ay nagu shactaraysanayeen. Toti Carbalan oo ah tababare u dhashay Spain waxa uu ka mid yahay dadka la dhagaxeeyey islamarkaana loogu yeeray magaca xanuunka dunida ku faafaya ee corona. maalin ayaan ordayay dabeetana waxaan arkay carruur yaryar oo geed ku daba dhuumanaya. dabeetana waan dhaafay. markii aan halkaasi sii socday waxa igu soo tuureen dhagxaan. markaa imika waxay noqotay markaan ordayo in aan hareerahayga eego oo aan idhaahdo talow maxaa dhici doona oo aan sidii hore ka foojignaado. ugu yaraan 4 ciyaartooy oo reer Yurub ah ayaa BBC-da u sheegay inay horey u arkeen waxyaabo la mid ah waxyaabaha hadda dhacaya. Alex Chidido oo tababare ciyaaraha orodka ka ah magaaladaasi ayaa waxa uu sheegayaa in isbeddello badan ay dhaceen tan iyo markii uu xanuunkani ku faafay wadamada Yurub. farqi yar ayaan arkaa sababtoo ah marar badan ayay igu dhacday waxaana jiro saaxiibo ka baqaya xoogaa taas oo sabab ay u tahay inaan caddaan ahay.
ama ay noqon karto xaaladda kacsan ee Yurub ka jirta. Haa, xoogaa isbeddel waan dareemayaa. waxaa la iigu yeeray corona dad kale oo aan saaxiibo nahay oo aan garanayana way iga fogaadeen laakiin waan ku xushmaynayaa go'aankoodaas maxaa yeelay way baqayaan waana waqti kooban xaaladana caadi ayay ku soo noqon doontaa. qaar ka mid ah orodyahanada caalamiga ah ee ku tababarta magaalada Iten ayaa hadda door bidaya in koox ay isku raacaan ama ay raacaan kooxaha deegaanka ka jira si aan loo beegsan. balse arrintani ma ahan mid keli ku ah Kenya oo guud ahaan bariga Afrika ayaa lagu soo warramayaa in ajaanibta lagu cunsuriyeeyo xanuunka COVID-19. bishii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku booriyay dadka dalkiisa inaysan beegsan dadka ajaanibta kadib markii safaaradda Mareykanku ay soo saartay digniin ay u jeedisay dadka ku nool dalkaasi kadib markii qaar ka mid ah dad reer galbeed ah la dhagaxeeyay isla markaana lagu eryaday dariiqyada iyadoo lagu riixayo inay faafinayaan xanuunka corona. gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo shaqaale samafal oo aan doonaynin in magacooda la sheego ayaa BBC-da u sheegay in ajaanibta la shaqeeya hay'adaha gargaarka in lagu qasbay in dib ay uga fiirsadaan qorshooyinkooda amni kadib markii dhowr kolonyo ah oo hay'adaha gargaarka ah lagu dhagaxeeyay dalkaasi qaarkood sidoo kale waxaa loo geystay aflagaado loogu yeeray fayraska corona. If these attacks continue to escalate, there would be an immediate reduction in terms of humanitarian assistance. haddii weerarada ay sii xoogaystaan waxaa si degdeg ah isu dhimi doonta kaalmada bani'aadanimo iyo awooddeenna ku aadan inaan gudaha u galno aagagaas. sidoo kale kama duwanaan doonto haddii koox hubaysan ay weeraraan mid ka mid ah hay'adaha gargaarka markaasna waxaa si degdeg ah isu dhimi doonta awoodda aan u yeelanayno inaan dib u soo laabanno. arrimahan waa kuwo u baahan in xisaabta lagu darsado. cabsida ugu badan ee ku saabsan takoorka ayaa ah warar lagu baahiyey warbaahinta bulshada iyadoo dowladaha gobolka oo dhan ay bilaabeen inay qaataan wararkaasi la xiriira xanuunka corona ee been abuurka. aynu ku soo laabanno magaalada Iten orodyahanka reer Switzerland Alex Chodido waxa uu hayaa fariin gaar ah oo ah midnimada waxa uu ku tilmaamay waqti adag oo adduunku u galayo. waa arrin murugo ah waxaan fahansanahay xaaladda shacabka kenyaanka sababtoo ah xaaladda uu dalkeenna ku jira haatan waxay ila tahay in xaaladda aan dejinno mana jirto wax dhibaato ah waa inaan midnimo muujinno xilli xaaladdan lagu jiro. codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii uu inala socodsiinayay xasan sheekh cumar. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo qadar 23 daqiiqo. halkani waa BBC. wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan maamulka Jubbaland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay ka ganacsiga dharka hudhayda loo yaqaano iyo warqadaha ama joornaalada gacmaha lagu tirtirto. wasaaradda ganacsiga maamulkaasi ayaa sheegtay in tallaabadan ay go'gal leedahay sidii ay uga gaashaaman lahaayeen cudurka COVID-19 ee dunida ku faafaya kaasoo kiisas dhowr ah laga helay gudaha dalka Soomaaliya. haddaba wasiirka ganacsiga Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan ayaa arintaas uga waramay wariyaha BBC-da ee Axmed Xaaji Xasan. allah naga hayo cudurkan adduunka dhan qabsaday ee hadda meel walba qayladhaantiisa taalo ayaan rabnaa haddii alla idmo in laga dadaalo anagu dadaalo ilaahay na faray. marka barnaamijkan waa barnaamij aan kaga hortagayna in waxyaabaha sahli kara ama aan sababi kara ayaan ka hadalnay qaybta looga aadan ganacsi ahaan. marka amarka meelaha sida gaarka uu u quseeyo iyo waxyaabaha aad joojiseen maxaa ka mid ah taa noo sharax. waxaa ka mid ah dharkan hudhayda laleeyahay waa dhar hor loo soo isticmaalay kadib lasoo xerxiray oo dib Afrika looga soo qaado dharka kaas iyo waxaa ka mid ah joornaalkan la soo xerxiro bundudaha u xirano laga ganacsado oo runtii maqaayadaha iyo gacmaha lagu tirtirto oo runtii munaasab ah waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha aan ka hadalno. dharkaas hudhayda ah iyo joornaaladaas ma waxaa aaminsan tihiin in ay cudurkan qayb ka qaadan karaan inuu faafo oo wadamada laga soo dhoofinaya ay la imaan karaan. maya waxaa dhici karta dharkan waa dhar hudhay waa dhar lasoo isticmaalay waay marka la isticmaalo kadib haddana dad ay ka ganacsadaan oo xerxeraan oo waxay ku buufiyaan maxay ahayd waxyaaba aan habboonayn taas aawadeed maadaama uu yahay dharkan dhar hor loo isticmaalay suuragalna tahay wax kasta inuu sababo marka waxaan u sheegaynaa qof kastana in uu ka digtoonaado in uu soo geliyo guud ahaan Jubbaland dhar hudhay ah iyo joornaalkan in carabta laga keenaa oo runtii asagana waxyeeladiisa iska badan tahay oo
marka joornaalada ka sokow dharka huudheyda ayagana xaggee ka soo galaan oo jubbaland oo ay kaga imaadaan horta dhul waxaa wax laga ganacsada waaye meelo badan oo ka yimaadaa waa aragta adigoo laftaada africa waa ku badan yahay hadda noorabida aad joogta meelo badan aa la joojiyey meelo badan oo africa badaa la keenaa awal jabuuti soo mari jiri hadda meel soo mara ma aqaana marka anaga waxaan amarnay dekeda hadduu ku jiran in dib loo celiyo ama la gubo xuduudada dowladda jubbaland inaan la soo gelin karin dhar huudhaya bundad ka mid ah inaan la keeni karin khubarada caafimaadka ayagu waxay sheegayaan in fayraskan corona hadda jiro ee covid-19 loo bixiyey uu meel ku noolaan karo ilaa 3 maalmood iyo wixii ka badanna uu sii dhimanayo baaba'ayo dharkan iyo joornaalada waxaa suuragal ah isbuuc 2 isbuuc inay markab soo saaran yihiin oo ay saas ku soo gaaraan jubbaland marka soo lagama yaabo in dharkan ay qayb ka noqonayninba inuu fayraskii waddan kale ka imaado oo uu soo gaaro ilaa jubbaland oo dhexda kusoo dhiman karaba marka dhar isku xiran waaye dhir adag ku xiran tahay hawo ma arkaayo kuleelna ma arkaayo dhar isku xiran awalna wuxuu ahaa dhar oo dad soo isticmaalay oo haddana dib loo keenay marka saas aawadeed wax kastoo sababi karaa waxyaabo laakiin waxaa jiro dharkan ka dhow oo jubbaland si deg deg a ku imaado naqaadka xuduudda ka soo gudbo oo soo gaaro kuwaas maxay oga fikiri wayseen kuwa muddada soo qaadanaya ka hor kuwa oo sida maalinta ama ka yar soo qaato naqaadkana mar horaa la joojiyey awalba anaga waa joojinay ma imaan karo mamnuucuu ka yahay shaksiyaad meelo kula dhuuntay iyo meelo aan markaas dowladda joogan oo qarsoodi ay sida hadda xamar maalin waa la qabtay waa la gubay innaga haddaan aragnana go-aankaasaan loo yeelo ma garat tallaabooyin kaloo marka dheeraad oo aa qaadaysaan si looga hortago cudurka inuu faafo maxaa ka mid ah tallaabooyin badan aa la qaaday waxaa dowladda magacaawday guddi walo wasiiro ah wasaaradda caafimaadka meel kasta ay geysay oo laga soo galaya dalka waxaa la joojiyey iskuulaadkii xitaa dugsiyada qur-aanka la joojiyey ilaa muddo hakad la geliyey marka anagu dadaalkii ilaahay na farin baan samaynayna waa la dadaalayaa wacyigelinta ka waran dhinaca dadka weli maqaayadiyaa la isugu imaanaya iyadoo dugsiyadii qur-aankii ay xiran yihiin weli dadkii meelihii kubadda lagu ciyaaray isugu imaanayaan dadkii suuqyadii isugu imaanayan way isdhexmarayaan way istaabanayaan cudurkiina taabasho isu soo dhowaanshaa lagu kala qaadaa dhinacaas iyada ma egteen annaga horta waa dadaalaynaa oo waan u sheegnay maqaayadihii waa la wargeliyey oo hadda sidii hore sugma tago laakiin haddee soomaalida inaan wax u sheegnaan leenahay annago inaan dadka ma garaacayna laakiin sharcigii iyo ciidamadii iyo go-aankii dowladda ka soo baxay iyo dadaalkii waa wadnaa marka shaksiyaad iska baxay iyo shaksiyaad badda iska aaday iyo badda hadda lama waardiin karo waxaa laga yaabaa 3 nin 4 nin oo isku qoysa ama 5 nin oo isku qoysa inay badda aado marka haddii la arka 5 kale oo isku qoysna ay timaado 5 kale oo isku qoysna ay timaado wixii dadku ay badanayaan 20 ay noqonayaan waxyaabo saas waa dhici karaan laakiin dadka way ka hakadeen waxaas wasiirka ganacsiga jubbaland cabdinuur cali aadan ayuu ahaa axmed xaaji xasan ayuu u waramayey markana ciyaaraha siiba suuqa kala iibsiga manchester united ayaa isha ku haysa xidiga yuventus ahna daafaca xulka qaranka netherlands ee mathis de light oo 20 sano jir ah iyadoo paul pogba oo khadka dhexe ugu dheelay unitedna lagu wado inuu ka tago old trafford uuna aado dhanka kale evertonna waxay qorsheynaysaa inay mushahar badan siiso xidiga afka hore ugu dheela real madrid ee gareth bale idaacaddeenii subaxnimo oo maxamed cabdiraxmaan uu soo saaray anigoo ah kawtharna idinla socodsiinayay waa naga intaa tan iyo kulankeena xiga nabadgelyo